toddobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaano lagu sameynayo shilkii diyaaradeed ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarad ay lahayd shirkadda African Express. Haatan xog cusub ayaa waxay tahay mid soo baxayso. Haddaba sidee ayaa ay wax u dhaceen amaba baaritaanada waqtigan ay u socdaan? Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inuu diyaariyay. hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4 bishan ogolaansho hal maalin siisay diyaaradda nooceedu ahaa E120 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhaba, Bardaale, Muqdisho. saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya. baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu kor u qaado diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo. hase yeeshee ilbirqsiye kadib waxaa dhacday rasaas taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale. horeyna waxa uu gudoomiye uga soo ahaa degmadaasi. waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka waxaana uu arkay sida ay wax u dhaceen. diyaaradda meeshii ay ku degi lahayd iyo waxaa la gaarisiinka oo bantuur saaran waxaa istii diyaaraddan baabuurkana may ku dhacdama airportka markay soo cagay rabta ayay kor u kacday kaidii ay kor u kacday gaaridii waa meeshii yaallada lala marka 5 xabadood ayaa lagu leeyay xabad waa lala xabadu garab martay 4 xabad way ku dhaceen. markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kala miyay fureen? diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi? waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda. garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto. ila kale waxay VOA u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyay isku daygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer. kadib markii uu isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya. hase yeeshee Weydow Cali Xasan oo goobta ku sugnaa isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda. rad badan baa joogay meelna baabuurtooda ay dhigteen meelna ayagii baa joogay meel soo gali kara ma ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah. saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. 2 sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya ee aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyana oo Bardaale soo gaadhay 20 bari ka hor. waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhaxda iyaga oo soo lugeynayay. xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatana ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso. arrintaasina waxaa lagu cadeeyay dokumentiyo lagu baahiyay warbaahinta hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda. diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuuga? oo shaqad diyaaradda la yaqaano baabuur ku soo degay oo haddana ku soo degtay inay soo degaysana la ogaanayo heer markii togeeba inay joogayeen loo sheegay inta aan la caddayn kara laakiin maamulku waa loo sheegay waa ogaayeen diyaaraddan dadda ama ka soo socday dadaba hadda ka soo degtay badawada ka soo socday dadka ku soo socdo waa la ogaa. haddii haddaba baaritaanka la samaynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM waxaa taasi ka iman kara su'aalo dhinaca sharciga ah. inkastoo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sanado ah
iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. Inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah. Ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ilawareedyo lagu kalsoon yahay ay sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya. Bardaale waxay ka mid tahay 3 magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn. Labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere. Qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale. Mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo uu wada xukumo taliye kaliya. Saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya. Waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah. Waa kan Weydow Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi. والله إذا ما يتوب يلا يصور بالناس حديث لكن ما هو والله صار ما هو وقع يا رب يتوب بس والله لو صور بالين ترتب الزيارة ويشتى يأد الزيارة صوتي في وحشة لا هو مشاهد. waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan 3 geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa dhawaan iiga warramay baaritaankaasi. wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesskii waa lasoo arkay. marka insha Allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay Allah u naxariistay iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortagi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan. Hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhex maray, isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay shilkaasi.